muwaadin u dhashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa xabsi guri u geliyay shaqaalihiisa ka soo jeeda dalka India sabab la yaab leh. Ninkan reer Imaaraat ayaa ku khasbayay shaqaalahan inay taageeraan xulka Imaaraadka maadaama labada dal ay wada ciyaarayeen kulan ka tirsan koobka Aasiya. Koobkan ayaana lagu dhigayay gudaha dalka Imaaraadka. Ninkan u dhashay dalka Imaaraadka ayaa weydiiyay shaqaalihiisa dalka ay taageeri doonaan ciyaartaas, waxa ayna ugu jawaabeen inay taageeri doonaan dalkooda hooyo. Waxa uuna ku yiri waxa aad ku nooshihiin halkan waana in aad taageertaan Imaaraadka. Ugu dambeyn shaqaalaha ayaa ku khasbanaaday inay dhahaan waxa aan taageeraynaa Imaaraadka. Dowladda Imaaraadka ayaa ku tilmaamtay falkan uu ku kacay muwaadinkaas inuu yahay taageernimo waali ah uusan matalin dadka u dhashay dalkaas. Ciyaartan dhalisay buuqa ayaa waxa ay ku dhamaatay 2-0 ay guusha ku hanteen xulka Imaaraadka. Sababta ciyaartan xiisaha gooniga ah u yeeshay ayaa ahayd xulka India oo guul ka gaaray dhigiisa Thailand kulankii koowaad ee koobkan, halka xulka qaranka Imaaraadku ay barbara la dhaaf waayeen xulka kubadda cagta ee Bahrain. Afarta dal ayaa ku wada jiray hal group. Haddii aysan Imaaraadku guul gaari lahayn kulankii labaad, waxa ay halis ugu jireen inay ka haraan koobkan. haddaba daawade sidee u aragtaa taageeranimada noocan oo kala ah? fadlan fikirkaaga waxaad inoogu soo gudbisaa qaybta aaraada ee comments-ka. mahadsanidin.